halkan maanta waxaa noogu qabsoomay shir ku soo aaday waqti aad iyo aad aan isleenahay waa muhiim u ahaa dhinaca amniga markaan ku hormaro horay ayaa amniga iyo iskaashigiisa iyo ka wada shaqayntiisa iyo in cadowga argagixisada meel looga soo wada jeesto ay u ahayd shaqo socotay oo hore loo gaaray maanta waxaan uga hadlaynaa waxay ahayd dardargelin iyo inaan ka jawaabno isku dayada iyo dhagarta ay guud ahaan Soomaaliya ay kula kacayaan argagixisadu gaar ahaan labada dawladood ay kula kacayaan taasna horena meel fiican bay u joogtay haddana kalsooni baan ku qabnaa insha Allah inay heli doonaan wada jirkeena jawaabta ka timaada si wada jir looga howlgalo waxayna leedahay farsamooyin iyo hawlo ay hay'adaha amniga u gaar ah sidoo kale inaan wax walba oo argagixisada gacan sii kara aan dadkanaga iyo deegaanadeenada kala hadalno laga baraarujiyo oo ay ka mid tahay coladaha yararka iyo waxyaabaha ay ku soo gabadaan ama ayaguba ay gacan ka geystaan dadka inay isku diraan si ay u gaaraan waxyaabaha ay qoolayaan iyo falalkooda waxashnimada ah sidoo kale waxaan maanta halkaan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay taasna waxaan meel isla dhignay inaan ka howlgalno ka shaqeyno sidaan horeyba asaaskeedii iyo bilowgeedii uga wada shaqeynay guulna looga gaaray mar walba doorashadu waxay leedahay waxyaabo la socda oo aan ka harin waa tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha tan waxay leedahay hadda muhiimad gaar ah ay leedahay aragti gaar ah ay leedahay dhinacyada oo dhan inaan hawsha iyada ah si dhaqso ah wada shaqeyno saaxiibadeena kale ee dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah iyo dhinacyada kale oo tabashooyinka ay ka jiri karaanba inaan dhamaynteeda aan ka shaqeyno aad baan soo dhaweynay aragtiyo aan isleenahay insha Allah saaxiibadiin waa u gudbin kartiin oo waa la kala shaqeyn karaa oo waa lagu ku dhamayn karaana waa kaleena waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa dhinacyada oo dhan in laga wada qayb qaato si ay ku dhamaan lahaayeen doorashadana si habsami lagu gali lahaa waxyaabo mar walba ama dhinac tabto ama si gaar loo dareemo way jiri karayaan waxa aad muhiim u ah inta badan inaan u tanasulno ama loo tanasulo ama la ogolaado maslaxada caamka ah iyo in doorashadu nagu dhacdo si xalaal ah taana waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan dhammaan dhinacyada oo dhan ka codsanaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in talooyinka iyo qof walba waxa uu geysan karo uu dhinaca ku beeriyo wanaaga marnaba aan lagu darin ama aan la isdhihin dhinaca wax ku sii adkaan karaan ka shaqee qof walba inuu ka fogaado taas oo u leexdo ama uu miisaankiisa ku daro inay doorashadu si xor iyo xalaal noogu dhacdo tabashooyinkana xalkooda u qayb ka noqdo